madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gaaray magaalada Johannesburg ee dalka South Africa halka uu kaga qayb gali doono shirka madaxda Afrika iyo dalka China. wafdiga madaxweynaha oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Pretoria ee caasimadda dalka South Africa halka oo inta badan madaxda Afrika iyo wafuudda kale ee caalamiga laga soo dejinayay waxaana garoonka ku soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika mudane Jamaal Maxamed Barrow wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo sidoo kale madax ka socotay dawladda Koonfur Afrika gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda. afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Daawud Aweys oo la hadlay warbaahinta qaranka markii wafdiga soo degay kadib ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qayb gali doono shir lagu xoojinayo xiriirka qaaradda Afrika kala dhaxeeya wadanka China waxaana shirkaasi uu ka dhacayaa magaalada Johannesburg. waad mahadsantahay madaxweynaha dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka mid yahay madaxda Afrika ee lagu martiqaaday shir madaxeedka Afrika iyo China oo ka dhacaya magaalada Johannesburg. guud ahaan shirkani waxaa looga hadli doonaa waa shirka China iyo Afrika arrimaha iskaashiga labada dhinac ee Afrika iyo China. sidaad ogtahay China waxay aad u daneynaysaa goorahan dhow qaaradda Afrika hore iskaashi ayaa uga dhaxay laakiin haatan waxa muuqata in iskaashiga la sii xoojinayo oo qaaradda Afrika ay noqotay qaarad haatan aad loo daneynayo. dhawaan waxa magaalada Delhi lagu soo gabagabeeyay shirkii Afrika iyo India haatan waxa dhacaya waa shirka Afrika iyo dalka China. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale inta uu joogo magaalada Johannesburg waxa uu kulan gaar ah la qaadan doonaa madaxweynaha dalka China ka uu kaga hadli doono xiriirka qotada dheer ee kala dhaxeeya dawladda China dawladda Soomaaliya sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirkaasi iyo waliba wada shaqaynta labada dawladood. marka aan u soo noqdo kulanka madaxweynaha uu la yeelan doono madaxweynaha China Xi Jinping waxa kulankaasi lagu gorfayn doonaa ama looga hadli doonaa xoojinta xiriirka labada dhinac iyo in dib loo soo nooleeyo iskaashiga iyo xiriirkii labada dhinac ka dhaxeeyay. sida ogtahay China mashaariic badan ayay ka fulisay Soomaaliya haatan waxay dawladda Soomaaliya daneynaysaa maadaama Soomaaliya dib u dhis lagu sameynayo in China ay kaalin weyn ka qaadato isla markaas kulankaasi gaarka uu dhex marayo labada madaxweyne ee Soomaaliya. wadanka China ayaa iminka wada dadaal kor loogu qaadayo xiriirka kala dhaxeeya qaaradda Afrika iyo sidii maalgashi loogu sameyn lahaa guud ahaan qaaradda Afrika. Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya Santon Johannesburg Koonfur Afrika.